kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaal meel walba joogtaan waxaan leenahay ku soo dhawaada barnaamijkeeni faaqidaada ciyaaraha ayda toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa faaqidaada ciyaaraha Chelsea oo laga yaaban yahay oo si dardar leh ay ku soo gashay kaalintii labaad oo halka ay ku soo cariirsatay haddaba waxa ay doonto ugu taagan tahay kooxda Liverpool oo Realka imikan leelinaysa iyo sidoo kale kooxda Arsenal oo ku tashanaysay inay Liverpool soo qabato ayada kulankii sabtida iyo kulankii axadda dhacay ayaa markaasi wax walba markaasi kala saadaaliyay in Arsenal ay bareejo gasho Fulham ay bareejo la gasho halka Tottenham 3-4 ay ku garaacday kooxda Chelsea ayaa halkaasi gool weyn oo aan lama filaan ah ay ka gaartay marka waxa markaasi la filayaa inta badan ba kooxaha Chelsea Arsenal iyo Liverpool inay ku hardamayaan iminkan kala horeynta horyaalka Premier League ayna doonayaan in markaasi ay ku guuleystaan midka kalaba haddaba Chelsea ayaa si lama filaan ah ay waxay ku noqotay koox markaasi laf dhuunkasho ku noqoto Arsenal iyo Liverpool oo labadooda si weyn ugu hami weynay inay markaa ku guuleystaan horyaalka Premier League ee sanada 2024-2025 haddaba Arsenal ayaa iyaduna hami weyn ku lahayd laakiin hamigeeda ayaa iminka wuxuu noqday mid aad iyo aad loo wiiqay oo markaa kooxda Chelsea ay ka soo hoos baxday haddaba bareejooyinka fara badan ee isdaba raacay kooxda Arsenal iyo gooldarada isdaba raacday ee kooxda Manchester City ayaa waxay noqdeen kuwa markaasi guul la'aan u soo hoyda oo markaas aanan hami u yeelanin inay Premier League ku guuleystaan iminkan kooxda Liverpool bareejada ay la gashay Newcastle United isbuucii soo dhaafay ayaa hami weyn u yeelay dhammaan tartamayaasha kooxaha Premier League ku tartamaya sida Arsenal iyo Chelsea halka City ayaduna hami weyn ay lahayd balse Crystal Palace ay la dhaafi weysay 2-2 bareejo isbuucan sabtidii ay dhashay ayaa waxay markaasi ku barbar dhacday Crystal Palace Manchester City 2-2 kadib waxa markaasi hami weyn yeeshay kooxda Arsenal oo ayaduna rabtay in markaasi Fulham ay gigida Fulham ay ku garaacdo laakiin 1-1 ayay markaa ayaduna isla dhaafi waayeen bareejo ku soo idlaatay halka gool ay dhaliyeen ugu dambeyn waqtiga dambana oo markaa ay 3 dhibcood ku hami weynaa laakiin la sheegay inay tahay offside sidoo kale Chelsea ayaa waxay la kulantay guriga Tottenham ay markaasi kula kulantay kooxda Tottenham halkaasi oo ay 3-4 ay Chelsea ku badisay waa tahay haddaba daawaday haddii aad nagu cusub tahay fadlan inoo follow garay page-ka sina share garay like commentigana waa idinka dhankiina aynu sidoo kale ugu dambeyn ka hadalno kulamada caawa la ciyaari doono UEFA Champions League Dynamo Zagreb ayaa waxa la ciyaari doonta Celtic Atlanta iyo Real Madridna waa isla ciyaari doonaan Girona iyo Liverpool ayaa isla ciyaari doona Bayer Leverkusen iyo Inter Milan ayaa isla ciyaari doona sidoo kale RB Leipzig iyo Aston Villa ayaa sidoo kale isla ciyaari doona PSG iyo Salzburg ayaa isla ciyaari doona sidoo kale Shakhtar Donetsk iyo Bayern Munich ayaa isla ciyaari doona Brest oo ka soo jeeda Faransiiska iyo PSV oo Holland ka soo jeeda ayana isla ciyaari doonaan ugu dambeyntii Club Braga iyo Sport CB ayaa iyagana isla ciyaari doona fadlan haddii aad nala soo gaartay dhamaadka barnaamijkeena noo follow garay page-ka sina share garay waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh tan iyo inta ku kulmi doono barnaamijkan waxaan leeyahay nabad gelyo